سبي عذاوة معجزة فانكا يا لوgu yeedhaa balse magaciisa saxda ah waa Farxaan Qalinle waa hobol ku caan baxay qaadista iyo ku luuqeynta heeso hore ay u qaadeen fanaaniin waqti hore shidi jiray fanka Soomaalida daahan waxa uu noqonayaa fanaanka ugu daada yar ee ka heesa magaalada Hargeysa maalmo kooban gudahood ayuu codkiisu u soo jiitay bulsho badan oo Soomaali ah kadib markii muuqaal uu leeyahay uu baraha bulshada u dhex qaaday si xoog leh heestos oo ahayd mid uu hore u qaaday fanaanka Cabdiqadar Xasan Laari oo erayadeedana uu sameeyay Axmed Ilaaye muddo kooban oo baraha bulshada ay ku jirtayna heestaasi uu ku caan baxay Farxaan Yare waxa daawaday dad kor u dhaafaya 1 milyan oo qof iskumaan ogeyn inaad oofin weyda iskumaan ogeyn inaad bisoaya iskumaan ogeyn inaad adhaaxi goysa ilkii xabaashana inaad ii horseeda mucjisada fanka Farxaan Qalinle waxa magaalada Hargeysa goobo ku yaala habeenada qaar ku madadaaliya boqolaal bulshada kamid ah qaadista heesii hore markan waxa si toos ah uga qayb galay bandhig caweysina oo habeen kasta oo Jimca soo galayo uu ku qabto hotelka Royal Palace muddo kooban oo aan dhageysanayay heesiisa aniga ayaa fadhiga xamili waayay oo is arkay aniga oo mashraxa ka raacinaya jiibta iyo jaanta horta fankan waxaan ku jiray muddo 8 bilooda inkastoo dibinoon caadi ugu jiray intii kale aan tababar ku jiray iyo in wax soo barto horta mar hiyadayda soo bandhigayo waxa fanka aad baan u jeclaa inkastoo aan markii hore hees jiray laakiin aan soo dhiirinayn maanta ma kabana ma cid ku heeso waa talabaade horta arrimaha yara jacayl baa yara jiray taas ayay u kaliftay inaan muxuuha fanaan noqdo mana ogeyn xilli aan laalay xilli aan heesay ana isku meel ogeyn qaadin ark anu marka hore horta heesaha qeyrada ama haddii labadii kaliya calaalka wax ku jeclay dareenkayga horta la socdo hees qeyra markaan qaadayo siban noqdayo siban heesaha qeyrada ugu raaxaysta ku xaraama jiifkii hajuwaayay gobashii marka soo xasuustaba sidadii xumaysay xaakim waa ilaahi anna waan xigsanayaa adna goysay xadhigii ilan dumar xismaalahay horta fanaan daafac caalamka laga yaqaaneen noqdan doonaya maadaama fankiisa soo geliyo ma rabo inaan dub u laabto ilaa intan ka noqonayo fanaan caalam heesahan leeyna waxaa ka mid ah inkastoo ay duruuftiyo waayuhu daboolaan dantu hoosu celisoy tafiraan ayaamuhu doqon baan xamilino dabaylaha xilligu sido ka dayowda sabankee madarso mageesigu anna diiftan caashaqa nabaradan damqanaye dadku waanay la qabin su'aalaha iyo aragtiyaha kala duwan ee bulshada inteeda badan uga imanaya Farxaan Qalinle ayaa waxa uu sheegay inay tahay maad wax baratid oo aad fanka iska dhaaftid balse hadda waxaan ku soo booqday mid kamid ah iskuulada ku yaala magaalada Hargeysa oo hadda wax ka barta Farxaan Yare waxaan ugu horeyn weydiiyay bal waxbarashada iyo heerka uu ka marayo anigu waxaan dhigtaa dugsiga sare ee Maxamed Mooge Secondary School waxaan ahay galaaska form 3 waxbarashada bulshada aniga ayaa ka jecel because waxbarashada aniga ay nafsadeyda ay nafacaysa marka bulshada waxa uu sheegayaa intii taageersan aad iyo aad baan ugu mahad celinaya inta isla farxaan wax ma dhigtana waxaan leeyahay wax waan dhigtaa waxbarashada iyo fankaygana waa kala laba macallin Maxamed Faysal oo kamid ah macallimiinta waxbara ardayda uu kamid ka yahay Farxaan ayaan weydiiyay waxbarashada dugsiga sida uu ku yahay fanka iyo tacliintu waxay ahaayeen laba isbarbar socda Maxamed Mooge Liibaan Ilaahay naxariisti jannaasiyo wuxuu ahaa macallin buu ahaa
waxaanu ahaa baan oran karaa hormuudkii fanka iyo suugaanta ummadii Soomaaliyeed inta haysta codkooda ku haysta marka Farxaan isagoo aan amal ka dayin buu hibadiisii soo bandhigay tacliintiisina si wanaagsan buu wataa hibadu ma wax isqarin karaya because laakiin qofku isagoo ayuun baa muxuu dubna soo dhiga horana isku adeelweeyay soo saara anu waxa leeyahay qof kasto hibale maanta